ururka dhalinyarada iyo horumarinta deegaanka Sooyaardo oo fadhigoodu yahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa bilaabay olole lagu nooleynayo dhirta isla markaasna wajigii koowaad ka bilaabay xaafadda Caaqil Yare ee magaalada Burco. munaasabada dhir qaybintan ayaa ka dhacday barxad ballaaran oo ku taala xaafadaasi waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco, odayaasha iyo waxgaradka xaafadaasi. ugu horeynba madashaas ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi injineer Cabdixakiin Xasan Macalin, odayaasha cuqaasha iyo waxgaradka xaafadaasi Caaqil Yare iyo qaar ka mid ah xubnaha sarsare ee ururkaas Sooyaardo. bismillaahi raxmaani raxiim. barnaamijkan dibudhiraynta ah ee ururka Sooyaardo uu wado kaasoo imika uu jooga xaafadda Caaqil Yare IDPS kan oo ka mid ah IDPS-yada magaalada Burco ay ku wareejin doonaan insha Allah 100 geed oo ah phase 1kii 100 geed oo ah dhir xareed dhamaantood. ururka Sooyaardo oo urur ka shaqeeya horumarinta reer miyiga iyo wacyigelinta dhalinyarada. waxaan soo dhaweynaynaa ururka Sooyaardo, ururkaas oo maanta nala jooga xaafadda Caaqil Yare loona keenay dhir xareed si loogu beero xaafadda oo loogu soo deeqay xaafadda Caaqil Yare. waanu ka gudoomaynaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa. dabagalkana waa qudayda ku dabagalaynaa xaafadda oo la beero oo la ilaaliyo oo geedku aan magaalada la keenin oo koro oo laga shaqeeyana wanaga ku dabagalaynaa xaafadda. waxaan isugu nimay maanta xaafaddan deegaanka cusub ee Caaqil Yare la yiraahdo deeqda ay noo keeneen walaalaha iyagana hay'addan ay noo keentay baan ilaahay ugu mahadinaynaa. sidaa daraadeed meeshan waa yagleel meel cusub weeyaan, maadaama ay meel cusub tahayna wax badan bay u baahan tahay. waxay u baahan tahayna waxa ugu qaalisan oo ugu muhiimsan dhirta la harsanaya waa hoy weey. dalka iyo dadka dhan bay hoy u tahay, manfac badan bay leedahay, ilaalin bay u baahan tahay. waxaanu leenahay xaafadda iyo deegaanka iyo guryaha reer waliba geedka loo dhiibay inuu ilaaliyo sidoo qof dadka u koriyo inuu geedka u koriyo. anigoo ah dhalinyarada Sooyaardo ee maanta joogta gobolka Burco, gaar ahaan xaafadda Caaqil Yare Village. markaan xaafado badan oo aan ku tan lamid ah ku galay waxaan ogaanay xaafadda Caaqil Yare inay u baahan tahay dhir xareed, waayo waxaan aragnay inay xaafaddu tahay saxaro oo xabadgeeda ka taagnayn. dadkaasoo bacadku markaan argo dilooday oon u kurgalay oon nimid ayaan saa daraadeed u soo qaadnay 100 geed ugu horeeyay. marka insha Allah waxaan ka codsanaynaa dadka halkan degan caruurta iyo isku jira dumarka dhirta inay dayactiraan oo hagaajiyaan oo ay beeraan, waayo way anfacaysaa. wixii ka dambeeya insha Allahna Ilaahay noogu soo dhiibo waa loo keenaya haddii Ilaahay ka dhigo. dadkana aad u tabaalaysan markaan aragnay oo waliba aad iyo aad uga naxnay haddaan nahay ururka Sooyaardo. ururada nala midka iyo waxaan u sheegaynaa hay'adahaba si fiican inay soo taalukulayaan ama dawladaba, waayo aad dad ugu tabaalaysan weeyaan. meesha joogana waa saxara cad. aadna waxaan uga mahad celinaynaa guddoon agaasimaha inuu soo siiyay dhirtan. maxamed aad iyo aad buu mahadsan yahay. waan uga mahad celinaynaa agaasimaha. marka saasa kaga baxaya idinkana waxayna leeyahay dhirta hagaajista dayactirta. magacaygu waa Dekeyo Musarabiile, waxaan ahay dhalinta aadka ugu taageersan ururka Hargeysa Sooyaardo. runtii waxaan ka arkaa halka moraal aad u fara badan oo ayna siiyeen ururkaasi, iyaga oo nooga soo hagarbaxay gobolkoodii, iyaga oo noo soo dayacay waxyaalo fara badan oo shaqadoodii iyo kamid waxbarashadoodii intaba, iyaga oo doonaya rajeynayana sida uu dadkoodu u noqdaan dad horumaray maxay toolay magacna ay u yeeshaan. runtii aniga laftaydu Dekeyo ahaantayda aad baan u soo dhaweynayaa, aadna waan ugu faraxsanahay. aad iyo aad waxaan uga codsanayaa qurba joogta meel kasta ay joogto inay u hagarbaxaan hiil iyo hooba ay la garab istaagaan, waayo way dadaalayaan. insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa horumar buuxa bil kadib sanad kadib dhowr sano kadib waxaan rajeynayaa isbedel aad iyo aad u fara badan. dhanka kale waxaa isaguna munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay xildhibaan Siciid Raago oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco, isagoona mahadnaq ballaaran u soo jeeday ururkan sida mutadawacnimada ugu shaqeynaya bulshada. maanta waxaa noo farxad ah oo aan u hambaleynayaa ururka dhalinyarada Sooyaardo oo ah urur dhalinyaro oo samafal kana yimi xagga caasimadda Hargeysa. ururkaas oo xaafaddan Caaqil Yare ugu deeqay dhir fara badan oo ugu tala galeen inay ku dhireeyaan deegaanka cusub ee xaafaddan Caaqil Yare. run ahaantii xaafaddan waxay ka mid tahay
xaafadaha degmada Burco iminka ay u fidayso magaaladu xaafadaas ay degan yihiin dad aad iyo aad u fara badan una baahan in loo hirgeliyo baahiyaha asaasiga ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalyeeynaa ururkan dhalinyarada Sooyaardo oo si mutadawacnimo oo volunteer ah ugu adeegaya dadkoodii waana ku mahadsan yihiin qalabka ama dhirta ay noo keeneen. gabagabadii waxay ururka Sooyaardo ku wareejiyeen 100 geed gudoomiyaha xaafadaasi Xirsi Saalax isagoona gudoomiyuu u mahad celiyay ururkan Sooyaardo oo soo gaarsiiyay dhir manfac iyo waxtarba u tari doonta xaafadani. waxaan mahadnaq soo jeedinayaa hay'adan ama NGO-gan Sooyaardo waxay noo keeneen oo aanu ka gudoonay 100 geed oo dhir xareeda way ku mahadsan yihiin waa dad isxilqaamay oo ay danaqday baahida dadkoodii haysata way wanaagsan yihiin waa ku mahadsan yihiin annaguna waanu ka gudoonay waxaanu leenahay wajazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum. ururkani Sooyaardo ayaa ah urur ay ku midoobeen dhalinyaro iskood soo xilqaamay isla markaasna hadiya habeen u taagan wacyigelinta dhalinyarada iyo ilaalinta dabargoynta deegaanka.